horta waxaa ogaatiin madaxweyne farmaajo soo u yimid dadkii ugu badnaayaa magaalada ka dhintay 1000 qofoodaa isku maalin meel ku dhimatay maalin kalena 200 isku meel ku dhimatay oo ogtiin oo ex control iyo qaraxi ay ku dhintay soo been waa markii ugu horeysay oo dad siyaasiyiin guryahooda lagu weeraray waa ninka ogtihiin oo yiri doorasho kasta aniga aan qabanayo waa inay dadku dhintaan doorasho uu qabto dadku dhiman ma jiro asagnayn waa fool xumo tii ugu xumeed waa weerar lagu soo qaaday ma aha niman madaxa iyo meel banaane waa weerar lagu soo qaaday dawladnimada Soomaaliya dimuqraadiyadda Soomaaliya xurriyadda shakhsiga Soomaaliga ah oo la rabo in hadda loo bilaabo qarniga 21aad diktatoriyad iyo caburis iyo qasab iyo maxaan ku raadayay adoonsi loo bilaabay tahay ma aqbali karnaan leenahay dadkana ma aqbali karnaan dadka Soomaaliya inay aqbali karnaan anaga waa la ogaa Maxamed Abdullaahi Farmaajo sida uu wax ku maamulayay inay sidaan iyo si qaabdaran ku dhameyn doono hadeen hadda la iska qabanin runtii waxa la soo maray waa la ogyahay wixii maamulada doorashooyinka ka dhacay lagu sameeyay ayaa la wada garanaa dad inta la iska xirxiro maalin walba la iska xiro iska xiran nin musharax oo madaxweynaha inta la xiro 2 sano xirnaado dad haddana ay yiraahdeen anaga waxaan sameeynaa banaanbaxan ka qayb galeynaa la yiraahdo in la xabadeeyo marka wax la qaadan kara ma marka oo aan naloo tilmaamin wadanka la saaxiibi lahayn iyo wadanka la culoobi lahayn taasna ana ugu horeeya dalkaan rabnaan la saaxiibi karnaa Hirshabelle iyo Galmudug waxaa la rabaa madaxda Hirshabelle iyo Galmudug ee runtu sheegaan madaxda Hirshabelle iyo Galmudug inay ogolaadaan Maxamed Abdullaahi Farmaajo inuu madaxtinimada magaalada Xamar ku dhaco laga yeeli maayo inaa waatina laga rabaa dadka walaalaheena oo ka soo jeeda Soomaaliland oo la rabo magaalada in lagu kufsado oo siyaasadooda la caburiyo la baabada ka yeelmeen ayaga habeenkii markii waxa dhaceen shalay ma soo waxay xudii waxay tiri weeyr nimankii haween gidaarada ka soo laabay wax soo daatay ma aragtay weeyr waxay ma arag ciidamadan oo dabaabaadka wadana ma ogeynay horta gorgorkan la sheegay anigu waxaan ku maqlay maalin la yiri Galmudug la keenay oo dagaal ka socday gada in la geeyana waa maqlay goobta saddexaad ay ka dagaalameen waxay noqotay daljirka daahsoon horta inaan saas inaan u kood gareysaan aan rabaa haram cad iyo gorgor meel kale ay ka dagaalamaan ma kii maalinnimadii dhacay oo ra'iisul wasaarihii 3 sano iyo barka ra'iisul wasaaraha ku ahaa oo calankiisa u lulaaya xabadda lagala daalay maxaa ku fasiraysaa meeshii hadda dalkani uu taagan yahay dawlad waqtigeeda dhamaaday madaxweyne waqtigiisa dhamaaday oo ay xabad kaliya uga soo hartay duniduna nagu ixtiraami mayso Soomaalina ku horumari mayso meesha hadda ummadda Soomaaliyeed ay taagan tahay hal xal kaliya ay leedahay inta rabta inay dalka u turto inta aan rabin in dalkanu hagaago waa inay ka hor tagto inta rabta in dalka la tarantureeyo meesha waxa lagu soo weeraray waa beebayaal anaga waxa aan wadanay waxa waa istaafiyo khaas oo anagana waardiinay in maanta beebayaal lagu soo weeraro oo wali haddana loo sheegayo abaabul xoogan inuu socdo aad iyo aad anagu xunnahay dagaal dadkii ka soo shaqeeyana waa la ogyahay meesha ay ku dambeeyeen dagaal cadaalad darro ah oo dhulum ah guul kuma dhamaado marka waa ka waaninaynaa madaxweynaha inuu halkaas ku joojiyo maanta dhiiga daatay dhibaato dhacday ummad Soomaaliyeed la argagixiyay waxaan leenahay madaxweyne kafaak waxaad geysatay dhaawac weyn aad ummadda Soomaaliyeed u geysatay halkaas ku jooji wiilasha Soomaaliyeed lagu abaabulay dagaalkana waxaan leenahay ka jooga waxaad gacmaha la gasheen waa dhiig sababtoo wadankeenu ma xamili karayo oo ma qaadan karayo madmadow jira in intii wax lagu darsado la yiraahdo waan ka gudbaynaa waan soconaynaa waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ku celinayaa
arrinta doorashooyinka soomaaliya dagaalka shabaab soomaaliya oo dib u noqota civil war iyo ina dagaal qabiil u dhaco intaba way sababi kartaa ha laga taxadaro yaan la fudaydsanin balaayada ka dhacday horta maanta waa idab sharaysanaynaa idama sharaysanayno waxaan rajaynayaa markaas maxaa dhacay ironimo kuwa taganaa markay xabaddu dhacday horta jooga meel uma socotiin jooga haddii la yidhaahdo annaga laba arrimood oo magaaladan looga hadlaa waa doorasho iyo ra'iisul wasaare anigana diyaar uma ihi soo dhowaada waxaan leeyahay xasiloonida ha la muujiyo soo dhowaada waxaan leeyahay wada shaqaynta ha la muujiyo soo dhowaada ciidamadiina amniga la shaqeeya garab istaaga soo dhowaada cadow ayaan leenahay gudo iyo dibad ka hortaga soo dhowaada walaalayaal siyaasiyiinta walaalahayga ah ee muqdisho joogo diyaar ayaan idin ahay waa ku celcelinaya hadalkaas waxaan ugu celcelinaya wax kale maahane inaan diyaar idinla ahay inaan idinla fadhiisto geed dheer iyo geed gaabanba oo aan waxa aad tabanaysaan aan xaliyo soo dhowaada waa mahadsantihiin waxaan rajaynayaa xasiloonida ha la muujiyo waxaan waa dalkeenni waa magaaladeenni soo dhowaada